Assalaamu calaykum, kulanti wacan oo xiise leh. Ku soo dhawaada kanaalka Daruuraha. Waa muuqaal naxdin leh oo gilgilay dhammaan waddanka Ciraaq. Waxaana uu ku saabsan yahay haweeney 2 carruur ah oo ay dhashay ku tuurtay webiga Dajla. Maxaa ku kalifay arrintaasi? Inta aan gudagelin warbixintan, fadlan haddii aadan horay like u saarin boggeena Facebook, waxaan kaa codsanaynaa inaad haatan saarto si aad u hesho warbixinadeena cusub. Sidoo kale subscribe si barteena youtube.com/daruuraha. Kaamirooyinka ku dheggan buundada Al-Aimah ee isku xirta deegaanada Kaadimiyah iyo Acdamiyah ee labada dhinac ee webiga Dajla ee waddanka Ciraaq ayaa waxa ay duubeen mid ka mid ah muuqaaladii ugu naxdinta badnaa. Waa haweeney Ciraaqiyad ah oo webiga ku tuuraysa labadeedii carruurta ahayd ee dhashay, kuwaas oo kala ahaa wiil 3 jir ah iyo gabar 2 jir ah. Dabcan falkan waxashnimada leh ayaa waxaa ka gilgishay shacabka reer Ciraaq iyo dhammaan dadka Carbeed, iyadoo ciidamada booliskuna ay gacanta ku soo dhigeen markii dambe haweeneydan sida bareerka ah u dishay carruurteedii. Baaritaanka horudhaca ah ayaa tilmaamaya sida ay haweeneydan u qiratay inay carruurteeda u dishay sababo la xiriira khilaaf soo kala dhexgalay iyada iyo ninkeedii hore oo furay ama ay kala tageen bil ka hor. Sidaana iyadoo maseersan ay carruurteedii ay dhashay ugu daadisay webiga Dajla. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa mar ay xeero fandhaal kala dhaceen goobtii gaaray, waxaana baaritaan ay sameeyeen kadib ay soo heleen meydka labadii carruurta ahaa ee webigaasi lagu tuuray, iyadoo goobtana uu taagnaa aabbihii ilmaha dhalay oo la arkayay isagoo cod dheer ku ooynaya. Erayadii qalbiyada malaayiinta dadka ah gubay waxaa ka mid ahaa markii aabbihii carruurta dhalay isagoo taagan webiga jiinkiisa uu ku qaylinayay, weynakum yaa abuya, aabbe idin aaway, carruurteediiyay idin aaway. Xaaladaha adag ee nololeed iyo colaadaha waddanka Ciraaq ayaa dadka badankood waxa ay ku reebeen dhibaato xagga maskaxda ah oo u baahan in laga dabiibo. Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa ku kala qaybsamay ciqaabta ay mudan tahay haweeneydan gacan ku dhiglaha ah, waxaana badankood ay soo jeediyeen in la mariyo ciqaabta ugu adag, halka qaar kalena ay xuseen inaysan waqtigan waxba soo kordhinayn in ciqaabta loo kordhiyo hooyadan, balse loo baahan yahay in hadda kadib laga gaashaanto arrimaha noocan oo kale ah oo la sameeyo hay-ado qaabilsan xalinta mashaakilaadka qoysaska iyo muranada dhexmara lamaanayaasha. Haddii aysan korin karin carruurtana lagu wareejiyo hay-ado gaar ah oo qaabilsan xanaaneynta ubadka, sida ka jirta inta badan waddamada caalamka. Waayadan dambe waxaa falal naxdin leh oo midba midka kale uu ka sii daran yahay ay ka dhacayeen dalalka Carbeed sida Masar, Algeria, Tunisia iyo Morocco, waxaana dhacdooyinkaasi ay isugu jireen dilal waxashnimo ah iyo kufsi loo geysanayay carruur da'yar. Si kastaba, maseerka ayaa ah mid aad u xun oo mararka qaar dumarka caqliga ka tagsiiya, waxaana markaa ay ku kacaan falal aad uga baxsan bani'aadanimada. Daruuraha.